xuska munaasabada Kowda Luuliyo ah maalintii ugu horeysay calanka buluuga laga taagay gobolada Koonfureed ee Soomaaliya 1960kii isla markaana ay madoobeen koonfurta iyo waqooyiga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Munaasabada oo ka dhacday aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wafdi ka socda dawladda Jabuuti, xubno ka tirsan labada gole ee dawladda, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo fanaaniinta oo halkaas ku soo bandhigay suugaan ka turjumaysa qiimaha ummadda Soomaaliyeed u leedahay Kowda Luuliyo. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay xuska sanad guurada 58 ee ka soo wareegtay marka ay xoroobeen gobolada Koonfureed iyo Israaciil labada gobol ee koonfurta iyo waqooyiga, taasi oo aasaas u noqotay urashada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa habeen farxad leh, waa habeen qiiro badan. Waxaan isleeyahay caawa inay la mid tahay Kowda Luuliyo 1960kii dhowr casho ka hor waxaan u dabaaldegnay 26 Juun. maantana waxaan u dabaaldegaynaa maalintii midnimada Soomaaliyeed iyo xorriyadda gobolada Koonfureed oo ay ka soo wareegtay 58 sano. hambalyo ciid wanaagsan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. ummad walba waxay leedahay taariikh, astaan iyo maalmo hayaankooda qarannimo uu ka soo bilowday. taariikhda ee jiilka ka dambeeya uu u gudbiyo dareenka wadannimo iyo xilka qarannimo uu noqdo mid qori isku dhiib ah oo ku dhisan hab dimuqraadiyada. ummadda Soomaaliyeedna waxay soo martay hayaan dheer oo ka soo bilowday waqti aad iyo aad u fog, marxalado badanna ay soo martay, mirihiisana la helay 26 Juun iyo 1 Juulaay 1960kii. sidaas awgeed xuskan iyo dabaaldegan macnihiisu uu weyn yahay waxay tahay inaan dib u jilecno, aan dib u milicsanno hayaankeennu halka uu ka soo bilowday, jidka dheer uu soo maray, halka maanta uu joogo iyo himilada mustaqbalka ee aan higsanayno insha Allah. waxaa xusuus mudan meesha aan hayaanka uu ka soo bilowday ay ahayd meel aad iyo aad u qurux badan iyo maalmo aad iyo aad iyaguna u qurux badnaa. halgan sharaf leh oo dhalay xornimo, midnimo iyo qaran Soomaaliyeed oo mustaqbal horumar la tiigsanay. Shamsa Cabdiraxmaan Maxamuud, wararka STN, Muqdisho.